أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaan leeyahay walaalaha muslimiinta ahlu khayrka meelaad joogtaanba khayr ku waara nabad iyo caafimaad bashbash iyo baraare ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu ka baqno waxaan rabaa inaan maanta idiin soo gudbiyo daqiiqadahayga qiso yar oo xoogaa naxdin badan una baahan tadkira iyo tawciyo iyo ka fogaansho waxaa dhacday ilaahay subxaanahu wa tacaala waa mahadle islaam naga dhigay oo na badbaadiyey islaamnimadan nagu badbaadisay waad ogtihiin allah subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun alla wuxuuna farayaa inaan dhimanno annagoo islaama dariiqaasna aan ku dhimanno waxaa dhacday qiso yaroo cajaa'ib badan qof muxsina oo ahlu khayra oo musalliya waxa uu sheegay wuxuu yidhi aniga oo masjidka ku jira galab casarkiiya bacdal casr markaan tukada iska ictikaafaya ayaa waxaa ii yimid ilmo yar oo dhallinyara oo ilmeynaya markaas wuxuu igu yidhi adeerow gurigaygii qof baa sakaraada oo aada u dhibaataysan oo walaashay adeerow kaala qur-aan kusoo akhri waxay wiilkii baan raacay gurigii baan tegey gurigii waxaa jooga aabihii waan salaamay asalaamu calaykum waraxmatullah kadibna wuxuu ii sheegay qolkaas inay ku jirto gabadh dhallinyaro ah oo runtii dhallinyarada meesha ugu fiicneed ah gurigii haddaan qolkii gabadha ugu galay gabadhii waxaa saaran sakaraatulmowt innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wejigeeda waxaa ka muuqda geeri aada u dhib badan ninkii muxsinka ah oo ahlu khayrka ah ilaahay waa garansiiyey gabadhaa in xaaladeedu ay tahay xaalad adag wuxuu aada ugu dadaalay marka inuu u laqimo tawxiidka u qora ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah laa ilaaha ila allahu muxamadan rasuulullah markuu dhowr jeer ku celceshay gabadhi waxay tiri ma karo carabkaygu ma karo tawxiidka kalimatu laa ilaaha ila allah muxamadan rasuulullah ma karo wuu ku celiyey ma karo wuu ku celiyey ma karo allahu akbar allahu akbar dhowr jeer buu ku celiyey waa sakaraatulmowt waa markii la yidhi man aakhira kalaamuhu laa ilaaha ila allah dakhala aljanna man qaala aakhira kalaamuhu qofkii ugu dambeeya kelimatu tawxiid ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadu geeya gabadhii waa kari weyn kadibna geerida baa sidii ugu timid gabadhii sidii bay ku dhimatay aabbaheed buu weydiiyey isagoo aada u argagaxsan wuxuu yidhi walaalow gabadha aan maanta o dhan kelimadda iga kari weyday tawxiidka ah aan u laqimay maxaa ku dhacay buu yidhi wuxuu yidhi laba arrimood gabadhan wuxuu yidhi ma tukan jirin salaad ma tukan jirin marka labaadna heesay dhegaysan jirtay walaalayaalow labadaas arrimood bay gabadhii tawxiid ku kari weyday waxayna ku dhimatay iyadoo aan karayn oo kelimatu laa ilaaha illa allah kari weyday allah subxaanahu wa tacaala إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلهي وابلن قال دتك إلهي دريق اسكتو صناد دتك عبادة يستا دتك هيسا أندقيسن دتك أمرك الله قاتل وضو وحارم صلاة الله قتك عذاب بالغو متيستا هيستو لدقيستو khayr daraa lagu mutaystaa qalbi nifaaq bay ku beertaa ilaahayna qur-aankiisa uu ku sheegay cadaab ugu bishaara dadka heesaa iyo qurunka shaqeyna nebiguna wuxuu sheegay ummad dulliya inay soo bixi doonto oo xalaashan doonta zinada iyo xariirta iyo macaazif aalaatilahwi heesaa ah waxaad arkaysaa marka walaa ilaahay waa ballan qaada qofkii ilaahay ku xirnaada oo ilaahay ku toosnaada inuu adduuni aakhira u badbaadinaya uu leeyahay naxnu awliyaa'ukum fi lxayaati dunya wa fi laakhira qofka ilaahay la jira ma khasaaray nabiga sal slam waxaa laga wariyaa man axaba liqaa'a allah axaba allahu liqaa'ah waman kariha liqaa'a allahu kariha allahu liqaa'ah qofka ilaahay jeclaa inuu la kulmo oo khayr sameeya oo ilaahay ku xirnaada ilahay wuu jeclaanaya markaas yaan saxaabadu yaa rasuula allah almowt kullanaa nakrahu lmowt mowt miyaa ka sheekeynaysaa waa ka rahaynaa isuu yidhi maya qofka mu'minkaa goortii geeridu u timaado ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ka farxinaya bishaaraada iyo khayr kaafirkana meerkaasuu dhibaato arkaya walaalayaalow salaada oo lagu dadaalo heesaha oo laga cararo labaduba waxay keenaan xusnulkhaatima labadaas oo la isticmaalana waxay keenaan su'ul khaatima marka ilaahay aan weydiisanno allaahuma inaa nas'aluka xusna alkhaatima ilaahu khaatima nagu dil
qisaskaas waa qisas soo aroortay oo saxiixa xaqiiqadii adduunkana wax badan baa la arki hadda ilaahi subxaana wa tacaalana wax badan buu noo sheegi marka waxaan leeyahay nafteyda idinkaba walaalayaal oo salaadan aan ku dadaalno heesaha dhegeyso aan ka caro dhallinyaradii maanta aad iyo aad ugu badatay heesuhu aad bay u khayr daran yihiin heesaha cadaab baa lagu mutaysanaya heesuhu waa shar wey walaalayaal booska qur-aankii gelayaan waa masaamiru shayaatiin wey sala allahu maca waxaan ilaahay weydiisanaynaa walaalayaal kelmadeedaas aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana ulaa'ika aladiina hadaahum allah wa ulaa'ika hum lalbaab ilahay inuu nagu waafajiyo khayrka iyo barwaaqada dadka aan khayrka dee qalbigooda laga xirin allah wuxuu yihi waminhum man yastamicu ilayka xataa idaa kharajuu min cindika qaaluu liladiina uutuu lcilm maada qaala ulaa'ika aladiina tabaca allahu calaa ilahu qulubteena xirin walaalayaal marka adduunku waa wax yar waan tegaynaa mowtkiina waana sugayaa inagu mowtka diyaaru hanoo yimaado isticdaad lilmowt annago hanoo yimaado ilahi annago raalli u naga yahay hanoo yimaado mowtku sala allahuma calaa sayidina muxamadin wacala alihi wasaxbi ajmaciin